Assalaamu calaykum kusoo dhowow mar labaad guuleed podcast. Waxaan ku guda jiraa weli barnaamijkeenii aadka u ballaadhnaa ee horumarinta shakhsi ahaaneed. Waxaan nidhi horumarinta shakhsi ahaaneed waa mowduuca guud ee xagga sare ah, laakiin waxaan nidhi cutubyo yaryar baan u samayn doonaa. Marka waxaan soo eegnay cutubyo kala duwan. Cutubkeennii u dambeeyey wuxuu ahaa horumarinta hadalka, sidii uu qofku u horumarin lahaa habka uu u hadlayo haddii ay ku adag tahay in uu noqdo qof hadal yaqaana. Marka taas haddii aadan soo daawan insha allah fiidiyoyada kale ku jira, soo daawo. Barnaamijkani run ahaantii waa mid kaa caawinaya in aad nafsiyan, sida uu barnaamijkuba kuu sheegay ama cutubku kuu sheegayo, horumarinta shakhsi ahaaneed. Waa barnaamij kaa caawinaya in aad qaybo badan oo noloshaada aad horumariso, hadday noqoto hadalka, hadday noqoto kalsoonida, iyo waxyaabo badan oo dhinacyo badan aad ka horumarin karto. Maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsanaan doonaa fahanka iyo dareenka bulshada, taasoo iyaduna ah qayb ka mida horumarinta shakhsi ahaaneed oo uu u baahan yahay qofku in uu horumariyo. Marka aan nidhaaho markaa fahanka iyo dareenka bulshadu waa maxay, sidoo kalena maxay muhiim u tahay. Markaan bili-aadan nahay, waxaa nagu xeeran ama aan la noolahay bili-aadan kale oo sidayada, kuwana dhalay, kuwa aan dhalay, kuwa aan saaxiib nahay, kuwa aan shaqa naga dhexayso. Marka waa muhiim qofka bili-aadankii in uu xidhiidh wanaagsan la samayn karo, una fahmi karo sida uu cutubkuba kuu sheegayo, fahanka iyo dareenka bulshada. Marka si guud ayaan u eegi doonaa, waana soo koobi doonaa insha allah. Marka barnaamijka dhameeyo wixii feedbackana qaybta commentiga igula wadaag, taasoo ii noqonaysa dhiirigelin. Haddii aadan ku soo biirin guuleed podcast qaybteeda youtube-ka iyo sidoo kale qaybteeda tiktokta, waxaan kuugu soo tebin doonaa ama kuugu soo tebiyaa qodobo ku saabsan horumarinta shakhsi ahaaneed iyo wixii munaafacaad ee qofka wuxuun ka bedeli kara. Marka waxaan ku odhan lahaa ku soo biir, subscribe-na saar si aadan mar walba aad ula socotid barnaamijyada aan soo dhigo. Iyo dareenka bulshada, fahanka iyo dareenka bulshadu waxay noo oggolaanayaan inaan muujinno naxariis, yarayno nacaybka, oon abuuro nabad iyo isdhexgal, is-ixtiraam ku dheehan. Taasi waa shayga ugu muhiimsan marka ugu horeysa. Bulshadu markay goob ku wada nool yihiin, waxaa laga maarmaara in ay isdhex galaan iyagoo isqadarinaya oo is-ixtiraamaya. Wixii ay wakhtigaa haysteenna wax wada qabsanaya oo isfahansan. Sidoo kalena in aan aqbalo sida ay wax walba yihiin, oo wakhti xaadirkaas qof walba fikirkiisa in lagu qadariyo. Lab iyo dhidig wuxuu yahay qof walba in lagu qadariyo oo la is-ixtiraamo, la isna fahmo ayaa muhiima. Marka qof walbana in aad ku ixtiraantid aragtidiisa, adigoon qiimeyneyn muuqiisa, dherarkiisa iyo waxyaabo badan, keliya ku qiimeynaya bili-aadantinimadiisa iyo sidoo kale qof wanaagsan inuu yahay iyo siduu wakhtigaa ilaahay u abuuray qofka in aad ku qiimeyso, oodan qofkaasna nicin ama aadan iska fogeyn. Sidoo kale waxaa lama huraana in aan ogaano ama aan ka fiirsanno ficiladeenna iyo hadalladeennu sida ay dadka kale u saameyn karaan, taasoo inta badan aanu ka fiirsan haddii aan nahay weliba bulshadeenna Soomaaliyeed. Waayo habdhaqankaaga iyo sida aad u hadlaysa ama ficilada aad samaynaysid ama qof kale aad ku samaynaysid bulshada ku dhex jira, qofku doonaba ha noqdo, shakhsigu doona ha noqdo, mar walba waxay saameyn ku yeelan kartaa ama ku leedahay qofkaas ama dadka kugu xeeran ee kugu dhowdhow. Tusaale yar haddii aan soo qaadano,
habdhaqanka aad ula hadasho ama qofka habka aad ula hadasho hadday hab wanaagsan ay tahay, adigana wanaag baa kugu jira. Hadalka wanaagsanna sidoo kale waa sadaqo. haddii aad si xun ula hadashana qofkaas way saameynaysaa, adigana waxaad noqonaysaa qof markaa ku hongoobay inuu fahmo ama fahamka iyo dareenka bulshada aanan lahayn baad noqon karta. waxaad noqon karta qof empati aanan lahayn, oo xadaarad aan lahayn, oo dabcan aan fahmi karayn bulshada sida uu ula dhaqmayo. marka waxaa muhiima mar walba inaad isku daydo inaad kalaamkaaga wanaajiso, hadalkaagana aad wanaajiso, taasoo mar walba kuu horseedi doonta wanaag iyo isdhexgal iyo wada shaqayn wanaagsan. kolba markaa waxay ku xidhan tahay heerka nololeed ee la taagan yahay ama situationkaas. haddaba dareenka iyo fahamka bulshadu waxay awood kuu siinaysaa inaad ka warqabto ood fahanto dareenkaaga iyo sidoo kale ka bulshada kugu xeeran wakhtigaas. adigana way ku farxad gelinaysaa marka aad tahay qof dadka dareemadooda ilaaliya oo wanaajiya. waxaad noqonaysaa qof alla kacabsi leh, sidoo kale wanaagsan oo farxad badan, dareenkaaguna wuu sugnaanaya. laakiin haddaad tahay qof dadka dhiba oo hadallo ku dhaawaca ama juqajuqeeya, dabcan sidoo kale berri ka maalin xaqaaga unbaad heli doontaa kolley. bulshadaada inaad fahanto ama inaad dareento waxaa ka mid a in aad u dhuganuglaato baahida dadka kale. waa maxay baahiyaha dadka kale? baahiyaha ugu fudud ee qofka uu leeyahay waxa weeye ixtiraam. qof walba wuxuu mudan yahay ixtiraam inaad siiso. waa kow halka ay ka bilaabanto in aad qofkaas baahidiisa aad u buuxiso ama aad u dhaganuglaato, inaad ixtiraamto qofkaas aragtidiisa, hadalkiisa iyo bini'aadantinimadiisa inaad ku ixtiraamto ood qadariso. in aad ilaaliso qofka shucuurtiisa, taasoo ah dareenkiisa, inaadan dhaawicin, iyo inaad ka warqabto in uu yahay dabcan qof xaalad wanaagsan ku sugan, taasoo inoo horseedaysa inaan noqonno ka bulsho ahaan, ka shakhsi ahaan ku farxad gelinaysa, ka bulsho ahaanna dad isku duuban oo wanaagsan oo wax wada qabsan kara. marka qodobkani waa qodob aad u muhiima ayaan anigu u arkay. waa qodob khaasatan markaan bulshadeena Soomaaliyeed halka heerka ay taagan yihiin nolosha, ka mental ahaan iyo ka physical ahaan, maskixiyanba halka ay ka taagan yihiin dunida geeska aan ka taaganay markaad eegto, waxaan u baahannahay dabcan wacyigelin tanoo kale ah oo maaragtay badan oo la ballaadhiyo, in ay bulshadu ka wada shaqayso maslaxadeeda iyo wanaageega iyo wadajirkeega, iyo sidoo kale isjacaylka, nacaybka faraha badanna in la yareeyo, taasoo dabcan dhammaanteen inoo horseedi doonta aakhiriya adduunba wax wanaagsan. qofku adduunkana uu ku liibaanayaa, aakhirana dabcan ilaahay baa ka abaalmarinaya inuu helo janno wanaagsan maadaama camal wanaagsan falayay inta uu dunida joogay. guud ahaan haddii aan si gaaban u qeexno oon u soo gebagabayno, fahanka iyo dareenka bulshadu waa awoodda lagu aqoonsado oo lagu fahmo baahiyaha, aragtida iyo dareenka dadka kale. sidaan horeyba u soo sheegnay, waxaa ka mid ah aqoonsiga iyo qadarinta dadka kale. aqoonsiga markaan ku leeyahay, qof walba sidoo dowladahoo kale, qofka bini'aadanka xataa wuxuu u baahan yahay in aad aqoonsato, ood u aqoonsato inuu yahay qof jira, qof wax qabada, wax tari kara, oo inaad liidda maaha. inaad liidda maaha, in aad sidan aan maaragtay maanta isku haynay reereerahan iyo waxan maaha. qofka inaad shaqsinimadiisa, bini'aadantinimadiisa inaad maaragtay u aqoonsato, ood u qadariso, ood u sharafto iyuu mudan yahay. inta kala duwanaanshaha iyo khibradaha nololeed ama sidoo kale waaya aragnimada waa wax muhiima, oo qofka kaa weyn oo kaa waaya aragsan wuxuu kaa mudan yahay, ama qofka kaa khibrad badan noloshana wax badan soo qabtay wuxuu kaa mudan yahay in aad dabcan si gaara u ixtiraamto. sidoo kalena qofka uu kaa aqoon badan, kaa akhris badan, oo maaragtay dhinacuu isagu nolosha kaga jira kaaga fiican, wuxuu kaa mudan yahay inaad qadariso ood u sacbayso.
waa inta badan sida dunidu ama caalamka koowaad ay u wada nool yihiin. taana haddii aan samayno inagu ka Soomaali ahaan waxaan soo gaari doonaa dunida koowaad halka ay marayso, taasoo inta badan dadka galbeedka ku nool ama Maraykanku ay fahmayaan halka aan ka hadlayo. Tusaale, dunida koowaad waxay nagaga fiican yihiin qof walba wuxuu uu qabto ama wuxuu ka shaqeeyay iyo lagu qadariya iyo wuxuu bartay iyo siduu yahay. Haddii xataa uu yahay qof jiisa oo iska dhaawacan oo socon karayn, tusaale, boos buu nolosha ka hayaayo waa lagu ixtiraama hawshu ahayo. xataa ka kursiga ku fadhiya waxa laga yaabaa inuu qoraa yahay ama macallin fiisigis inuu yahay, waana lagu ixtiraama. laakiin inagu ka Soomaali ahaan markaad eegto qofka wax yaroo waxa lagu qiimeeya hoose. qof waxaad arkaysaa xaalad ilaahay iska haysato oo dhotinaya, waxaa lagu odhanayaa ma laangarahaasi waxba ma qaban karo, marka waa meelaha loo baahan yahay bulshadu in laga baraarujiyo. koley si obina ayaan u hadli doonaa. qaybta commentiga igu soo qor. barnaamijyada noocan oo kale waa iska xasaasi. shucuurtayduna aad bay u kacaysaa marka aan dabcan sidan hadda u duubayo. waxay ku fiican yihiin barnaamijyadan oo kale si obina oo live ah in podcast ahaan looga hadlo. marka insha allah aad iyo aad baad u mahadsantahay. waxaan rajeynaya inaad wax badan ka faa'iiday. muuqaalka like noo saar, noo share garee, sidoo kalena fikirkaaga ila wadaag. aad iyo aad baa u mahadsantahay. khayr iyo caafimaad baa kuu rajeynaya insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.